أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتي واحد كسر وقتين برنامج بوكسون تي في ومر والبعض وبرتان وحيابه نيوز وحيابه عصب aan kusoo qaadano wararka adduunka wax walba ugu baahantihiin Option TV oo aad ka heshaan ma wararka ha aado dibadda ama wararka dalka wax walba waxa maalmaha social media ama caalamka haystay wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Jubaland iyo waxyaabaha ka socda aan kusoo qaadana barnaamijkeena fikradaheena waana la wadaagi kartaan oo hoos aan ugu soo qori kartaan mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubaland ayaa sheegay in uu bedelay mowqifkiisii haatan uu tanaasulay nabadda Jubaland sida uu ku sheegay cod video ah oo laga soo duubay dhinaca kale xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Gudoomiyaha Kismaayo ayaa eedeeyay xukuumadda iyo beesha caalamka ayaga u taageersan hanaanka doorashada Jubaland. Arrintaas iyo wararkii ugu dambeeyay ee Jubaland waxaa warbixinta noogu diyaariyay Xuseen Barre Aadan. aan wada dhageysano dhammaanteen si aan wax ugu fahanno ama qaladaadka jira aan ogaano. dowlad goboleedka Jubaland waxa weli ka taagan muranka la xiriira hanaanka loo qabanayo doorashada ka dhici doonta maamulkaasi ee lagu soo dooranayo ama lagu xulayo madaxweynaha mustaqbalka ee Jubaland. golaha xukuumadda ee federaalka Soomaaliya ama xukuumadda madaxweyne cusub ayaa lagu dooranaa Kismaayo aan ahayn mudane Axmedow aan ahayn oo mudane hadda laga rabo xilka laga qaado Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa warsaxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay wasaaraddu si dhow ula socotay dhacdooyinkii ka dhacayay dowlad goboleedka Jubaland. wasaaradda ayaa soo saartay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in habraacyada loo maray xulista liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xuleeyay aanay waafaqsanayn diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in aan dariiq sharci ah loo marin dhamaystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warsaxaafadeedkeeda ku sheegtay in doorasho kasta oo ku dhacda sifo baalmarsan dastuurka federaalka Soomaaliya in ay noqon doonaan doorashooyinkaasi sida ay wasaaraddu sheegtay waxba kama jiraan. ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha gudaha doorasho walba ee qabato Kismaayo dowladda federaalka Soomaaliya hogaamiye Maxamed Abdullaahi Farmaajo وزوجان ويا حسن على قيري وحيدين وحبك ما يجران دور شو بأي قبطان الوقت تجيب لنا مكس ما الوقت نيس وحبك يجرين وحي قلدين دستوركي قابكي دستورك وحيوان ويسون قرن أي يستمعلن وقال دستوركم قرأي إن لو يحوين الله دور تكسمايو gudaha ee Soomaaliya ayaa waxa ay diyaar u tahay sida ay sheegtay in ay qayb ka qaadato goob joogna ka noqoto in ay Jubaland ka soo baxaan doorashooyin wadar ogol ah oo lagu qaracsan yahay sida ay wasaaraddu hadalka u dhigtay. laakiin dhinaca kale xildhibaano wasaaradda warfaafinta oo dowladda federaalka Soomaaliya ka dhisan waxay dhaaday waan rabnay inaan si fiican uga shaqeyno Jubaland doorasho ka dhacdo ama doorasho aad u fiican oo dadka dhan ay ku wada qanacsiin ay ka dhacdo waa la rabay laakiin dastuurkii Soomaaliya ayaa la geesmaray saas ogeed dowladda ma aqoonsano wax walba ay qabtaan ama wax walba ay dhigtaan ama doorasho walba ha ahaato ama Maxamedow ha la doorto ama ninkan ha la doorto inay soo xoogay laakiin